magaaloweyntan Toronto ee dalkani Canada ayaa waxaa ku qabsoomay xaflad caleemo saar ah oo lagu caleemo saarayay lagu ayiday laguna soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Zeylici iyo waliba guud ahaanba doorashooyinkii ka qabsoomay geyiga Somaliland xafladan oo lagu qabtay hool qurux badan oo aad u ballaaran oo ku yaala bariga magaalada Toronto ee dalkani Canada ayaa waxaa si wada jir ah ugu dabaaldegay oo caleemo saarka kaga soo qayb galay guud ahaanba shacabka Somaliland kuwooda ku dhaqan magaaloweyntan Toronto ee dalkani Canada waxaa dadka goobta joogay soo dhaweeyay hambalyaha iyo bogaadina u diray doorashooyinkii guud ahaanba ka qabsoomay Somaliland gudoomiyaha laanta Toronto ee xisbiga kulmiye Yaasiin Cabdi Xasan oo aad u soo dhaweeyay dadkii faraha badnaa ee goobta soo buux dhaafiyay marka hore waxaad iga gudoontaan salaan qaaliya waxaan inagu soo dhaweynayaa ilaahay mahadii maanta inaad xafladan iskugu nimaadno oo ugu talagalay dabaaldega aan kala qaybsano iyo farxadda madaxweynaha cusub Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Zeylici aan leenahay ilaahay xilka iyo mas'uuliyadda hay niidibay ilaahay hay nagu astro ayaan leenahay inaan duco ku gargaarno duco u dirno weeyaan waa xil culus weeyaan taasi waa mid mar labaad waxaan halkan uga faa'iideysanayaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan dadkii Somaliland ee gobolada kala duwan ku noolaa sida dimuqraadiyadda ee xilkasnimadu ku jirto codkooga sida xalaasha u dhiibtay waxay ahayd madal aad u qurux badan oo gabi ahaanba lagu sharaxay calanka Somaliland dadka intooda badan waxay ishayadu qabanaysay iyagoo ku labisnaa calanka Somaliland dabadeedna waxaa dadka goobta joogay hadallo reyn iyo bogaadin ba iska daba qaatay oo halkaasi ka yiri xubnaha xisbiga kulmiye ee dalkani Canada kuwooda ku dhaqan magaaloweyntan Toronto iyo nawaaxigeeda tahniyada badan ee madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka loo diray baan aniguna dhinacayga ka gelayaa waxaan u rajaynayaa in Ilaahay u fududeeyo xilka ay ummadda u qaadeen waxa kale oo u tahniyadeynayaa ummadda reer Somaliland oo qabtay doorashadii saddexaad ee madaxweyne waxa kale oo u tahniyadeynayaa guddiga Toronto oo qayb lixaad la ka qaatay ololihii doorashada hadal badan caawa halkan ma yaalo waxaan dhammaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh rag iyo dumarba ee ka soo qayb galay xafladda caleemo saarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha dawladda dimuqraadiga ee shacabka Somaliland golaha wasiirada dhammaan dadyowgii loo magacaabay xilalka kala duwan ee dawladda Somaliland waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa shacabkii Somaliland ee 13 bishii November 2017 u dareeray doorashada si ay u fuliyaan waajibkooda dastuuriga ah Fuad Hussein Abdullahi oo ka tirsan xisbiga wadani ee mucaaradka ah ee Somaliland ayaa isna goobta ka hadlay hambalyana u diray mas'uuliyiinta heer qaran loo doortay ee kala Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Zeylici marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa shacabka reer Somaliland ee muujiyay quruxda ay leedahay dimuqraasiga quruxda uu leeyahay muujiyay ee codkoodii bixiyay ee footeeyay sida nabadda u footeeyay ee fartoodii nugu riday ayaan u mahadnaqayaa marka saddexaadna waxa aan u ducaynayaa madaxweynaha qaranka iyo ku-xigeenkiisaba waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka ay qabteen ha u fududeeyo ayaan leeyahay
waxaa gebagabadiina goobta ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha ee waqooyiga Ameerika mudane Mustafa Cabdi Cartan oo dadka goobta joogayna soo dhaweeyay isla markaana hambalyo iyo bogaadun u diray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Zeylici isagoo gebi ahaanna shacabka Somaliland ugu hambalyeeyay doorashadaas oo uu ku tilmaamay mid tusaale wanaagsan u noqotay mandaqada geeska Afrika gaar ahaan guud ahaanna dalalka mandaqada Afrika oo dhan. waa habeen qaranka Somaliland oo dhan farxayo waa habeen aynu dabaaldegayno maaha un guushii kulmiye waxaynu dabaaldegaynaa qaranka Somaliland sidii qiimaha iyo qaayaha lahayd ay doorashadu uga dhacday taasoo ah mid aad iyo aad loogu farxo waayo geyiga ay ku taalo Somaliland geyi dimuqraadiyeed maaha waa geyi ay joogaan niman madaxa oo iska haysta meeshooda marka maantana innaka waxaynu ina tusaysaa ama aynu hormood u nahay qaaradda Afrika iyo caalamka saddexaad oo dhan waxaa si dhextaal ah dadka u maaweelinayay oo suugaan Soomaaliyeed aad u sarreyso goobta ku soo gudbiyay fanaaniinta Soomaaliyeed ee dalkani Canada gaar ahaan magaalada Toronto oo uu horkacayay fanaanka caan baxay Cabdicasiis Cali Ciise Iskulaaji Maxamed Cabdullaahi Xasan telefishinka caalamiga ee Somali Cable bariga magaalada Toronto ee dalkani Canada.